xusid mudan in dhawaalahan ba ay ciidamada liyu booliska iyo booliska deegaanku ay ku jireen shirar isugu jiray tababaro iyo qiimeen shirarkaas oo ujeedadiisu ahayd sidii ay hay'adaha amnigu ula jaanqaadi lahaayeen isbedelada ka socda dalka iyo deegaanka. intaasi kadib ayaa waxaa xaflad darajo bixin ah loogu qabtay hoolka shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan saraakiisha ciidanka liyu booliska iyo booliska deegaanka. xafladan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda deegaanka oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka nasiihayaha madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar. munaasabadan oo ay muhiimadeedu ahayd dalacsiinta taliyaha cusub ee ciidanka booliska gaarka ah iyo komishin ku-xigeenka booliska dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxaa furtaankii munaasabadan ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka nasiihayaha madaxweynaha deegaanka mudane Mustafa Maxamed Cumar isagoona sheegay ahmiyadda munaasabadan. waxaan maaragtay u nimid inaan guddoonsiino darajadii ku habboonayd taliyaha cusub ee liyu booliska maxamed muuse. insha allah intiina kale sacbaysana waad heli doontaan darajooyin xilli aan fogeyn. marka aad fulisaan dardaarankeennii ahayd xuquuqda insaankii la ilaaliyo oo wixii hore aad qabanayseen ee shaqooyin ahayd faraha badna aad ku dartaan in dadkii aad ka dhalateen eed u dhalateen iyagana maaragta aad ka farxisaan darajooyin iyo abaalgudyo fara badan way heli doonaan insha allah. hadal fara badan maana hadda kulley u iman maadaama aan dardaarankii kala qaadanay maalmahan inaan ku celceliyo haddana runtii looma baahna. keliya waxaan rabay inaan mar labaad idin tilmaamo ahmiyadda ay leedahay in la ilaaliyo sarreynta sharciga. sarreynta sharcigu cid walbay u dan tahay madaxda keliya u dan ma aha askartay u dan tahay. sababtu waxa weeye qof walba qaanuunka iyo waxa uu leeyahay uu helaya markaas kala sarreynta sharcigu ay jirto. hay'adaha dawligana waxaa loo kala saaray si cilmiyeysan si aan cidna cid uga xadgudbin sidaad jeceshahay maaha waa sida maaragtay sharcigu yahay inaan raacdaa fiican. taas markaan leeyahay waxaan ka wadaa hadday noqoto qaabka amar qaadashada loo kala amar qaadanayo qaabka maaragtay loo wada shaqaynayo loo xiriirayo waxyaalo sharcigu qorayaa jira kuwa aan raacno uma baahnin wax cusub wixii qoran ee meel ku yaalo unbaa miyo inaan raacno. maalmahan qiimeyntii socotay iyo cashiradii la siiyey waan hubaa in maaragtay isbeddel badan ay keeni doonaan. waxaan rajeynayaa inaad noqotaan kuwii dadkooda anfaca kuwii dadkooda difaaca kuwii dadkooda u adeega. sidoo kale madaxweynaha ayaa kula dardaarmay inay ciidanku sii xoojiyaan anshaxa iyo kala amar qaadashada iyo ilaalinta sharciga sheegana inuu ku faraxsan yahay kulamada kala duwan ee uu la yeelanayo ciidamada deegaanka. dhanka amar qaadashada iyo xiriirka dhaqaaqyo fara baa iska jiri kara laakiin idinku ciidan dowladeed baa tihiin mushaharka dowlad baa idin siisa cadiifad markaa taagan oo siyaasadeed oo maaragtay inaad ku milataan lama rabo waxaa la rabaa inaad ogaataan mar walba inaad ciidan haykel kala sarreyn iyo darajooyin leh oo aad kala amar qaadataan. taa baan ugu dardaarmayaa aad iyo aad u mahadsantihiin waa ku faraxsanahay mar kale inaan kulanno intaan ka balaaran inaan sii kulanno isbarannana waan jecelahay. intaasi kadib ayaa la gudagalay dalacsiinta taliyaha guud ee ciidanka booliska gaarka ah korneyl maxamed cabdi mawsar iyo komishin ku-xigeenka booliska deegaanka xamdi axmed ayaa waxa uu madaxweynuhu u xidhay darajada generaalka koowaad maxamed cabdi mawsar oo ah taliyaha guud ee ciidanka liyu booliska. waxa uuna sidoo